dagaalkii qaboobaayay dunidu waxa uu Soomaalida ku reebay raad ballaaran oo ilaa maanta saameyntiisu ka muuqato sooyaalka Soomaaliya. 1977kii dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ugu xoog badnaa waxyeeladii dagaalkaasi ku yeeshay Soomaalida. xilliga wax taageeraha Soomaalidu kama helin caalamka. taa beddelkeeda quwadihii adduunka iyo dawladaha ay xulufaysteen ayaaba isu kaashaday inay jabiyaan awooddii Soomaalida. barnaamijkan waxaanu ku soo xigan doonaa 3 sarkaal oo Raashiyaan ah oo ka warramaya dagaalka iyo qaabkii uu dhacay. saraakiishaasi waxay war siiyeen TV-ga RT ee Raashiya. halka u dambaysana waxaanu idigu maqashin doonaa General Maxamed Cali Samatar oo soo koobaya shaxdii Soomaalidu ay ku gashay dagaalkaas. laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baa ka soo saaray. taariikh baan idiin sheegayaa dagaalkii 77 ciidamadeennu kolkay qabri dahare gacanta ku dhigeen Mengistu wuxuu shiriyay dargigiisa wuxuu yidhi ciidamada qabri dahare qabsaday way inaga tayo fiican yihiin marka la fiiriyo 2 arrimood. mid waxa weeye way inaga tababar fiican yihiin talabaadna waxa weeye way inaga qalab fiican yihiin. haddii uu dagaalku 6 bilood oo dambe sii socdo waxaan shaki ku jirin in Addis Ababa laynoogu imanayo oo ciidankaasi inoogu imanayo. waxa keliya aynu kaga fiicannahay waa ciidamada cirku yidhi ciidamo cirnaa dhulma qabsada. waxaan ereygaa u soo qaatay maanta halka aynu joogno ciidamadeennu waa kuwii waagaa jiray. xilligii uu socday dagaalkii qaboobaay ee dunida midowga Soofiyeedka iyo Mareykankuba aad bay u daneynayeen mandaqada istiraatiijiga ah ee geeska Afrika. labada dhinac waxay u kala baratamayeen sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen marinbiyoodyada iyo dawladaha curdinka ah ee ka taliya geeska Afrika. Soofiyeedka waxaa walwal gooni ah ku hayay Masar oo gacantooda ka baxday bartamaha 70-aadkii ee qarnigii tegay. Ruushka waxaa fursad weyn u ahayd inuu saldhigyo ka samaysto geeska Afrika si uu xukumo dhaqdhaqaaqyada marinbiyoodka Baabul Mandab. baryaha waxaa khilaaf soo kala dhex galay Itoobiya iyo Soomaaliya iyagoo ku muransan dhulka Ogaadeniya. Ruushku waxa uu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac umuurtoodana waxa uu loo xil saaray waddanka Kuuba oo soo saaray qorshe odhanaya maamul wadaag ah oo federaal ah loo sameeyo Soomaaliya iyo Itoobiya ama hal raadsho qorshe kale oo lagu demin karo xaaladdan faraha ka sii baxaysa ee labada dal u dhaxaysay. bishii Juulaay 1977kii waxaa bilaabmay dagaal culus oo labada dhinac ah. Raashiyaanka waxa uu muuqatay in aysan dhexdhexaadin ku guulaysan karin caalamkuna wuxuu u haystay in Itoobiya aan lagu faragelin karin dhulka Ogaadeniya. raashiyaanku waxa uu kolkaa u xagliyay dhinaca Itoobiya. وفي إطار هذه التطورات الانعطافية وصل إلى موسكو الزعيم الإثيوبي منجستو هيلا مريم يطلب دعما عسكريا من موسكو، فوافقت الأخيرة مباشرة على تقديم الدعم العسكري الفوري. Mengistu Haile Mariam isagoo ka faa'iideysanaya xaaladaha isbedbedelaya ayuu u dhoofay Moscow. wuxuu taageero weydiisay midowgii Soofiyeedka oo si dhaqso ah ugu waafaqay inuu taageero ciidan siiyo Itoobiya. Addis Ababa wuxuu Ruushku keenay taageero hub iyo gaadiid leh oo xooggan. wuxuu sidoo kale daadgureeyay 18,000 oo ciidan Kuubaan ah iyo 2,000 oo Yamaniyiin ah oo loogu talagalay inay Soomaalida la dagaalamaan. Soomaalidu iyagoo awoodooda kaashanaya ayay sabaabuleen oo dagaalkii galeen durbana waxay guula ka soo hooyeen safafkii hore ee dagaalka waxayna ku sii siqeen 3 meelood oo hal meel dhulka Itoobiya aaminsanayd inay leedahay.
sida uu sheegay jenaraal maxamed cali samatar ciidanka Soomaalidu xilligaa tiradoodu waxay ahayd 50,000 ilaa 100,000 oo ololihii dagaalka lagu qoray. Maraykanku waxa uu arkay saamayntiisa geeska Afrika inay wiiqantay Ruushkana loo wada gacan galay. Markaas ayuu isagoo adeegsanaya Sacuudi Arabiya oo ay xifil wadaag ahaayeen waxa uu Sacuudiga u soo jeediyay inay taageero lacageed oo dhan 400 milyan ay siiso Soomaaliya. isagoo adeegsanaya hantida khaliijka Maraykanku waxa uu ka shaqaynayay in Ruushka iyo Kuubaankuba ay ku jabaan dagaalka. Sacuudiguna waxa uu ka baqayay in Ruushku uu ku soo laba kacleeyo haddii uu dagaalka guulka la soo baxo. وعندئذ قرر الأمريكيون التأثير على الوضع باستخدام البلدان الحليفة لها في المنطقة، وأصبح على المملكة العربية السعودية دفع فواتير الدعم العسكري الأمريكي للصومال في حربها ضد إثيوبيا. وكانت الولايات المتحدة تراهن على إغراق السوفييت والكوبيين في المستنقع الإثيوبي بأموال خليجية. جنرال ستانستاف مينستيف oo ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii xulafada ayaa sheegay in Itoobiyaanku xilliga aanayba lahayn khibrad dagaal oo xataa aanayba aqoon buuxda u lahayn sidii ay u isticmaali lahaayeen hubkii ay haysteen marka laga reebo 2 batalyan oo hore uga qayb galay dagaalkii Kuuriya. xilligaasna uu Maraykanku tababar siiyay باستثناء إعداد كتيبتين خاصتين. midowgii Sofiyeetku waxa uu tababaro u furay ciidankii Itoobiyaanka waxaana furintii dagaalka galay 18,000 oo askari oo Kuubaan ah. hore Itoobiya waxay u haysatay dayuurad miig ah oo Maraykan ah waxaana Mooska laga keenay 225 dayuuradood oo nooca dagaalka ah kuwaas oo rubuc saac uga soo hoobanayay garoonka Addis Ababa. waxa kale oo tababar socday gawaadhida dagaalka noocyada hubka ee kala duwan iyo askar dagaal oo inta Mooska laga keeno Yemen shidaal laga soo siiyo dabadeedna ka degayay waddanka Angola. sarkaal kale oo Raashiyaan ah oo goobta dagaalka ka qayb galay ayaa isaguna wuxuu leeyahay وبحسب شهادة أحد المشاركين في معركة أوغادين الرائد فيكتور كوليك فإن الأثيوبيين ما أن رأوا دبابات صومالية حتى فروا هاربين. ciidamadii aan hogaaminaynay ee Itoobiyaanku markii ay arkeen ciidankii Soomaalida ayay dib u ruqansadeen. markaas ay atro lagu cadaatay Kuubaankii iyo saraakiishii Ruushkana way aamini waayeen. waxaa taa ka darnaa Soomaalidu waxa ay nagu garaacayeen gantaalihii aanu siinay iyo tababarkii saraakiisha Sofiyeetku siiyay. masaaridu waxay Soomaalida u ballan qaaday inay garab siin doonto haddii Itoobiyaanku ay xadkooda soo dhaafaan laakiin taasi ma ay dhicin. General Maxamed Cali Samatar ayaa dhinaca Soomaalida hogaaminayay isagoo koobaya qaabkii dagaalka ay u waajaheen wuxuu yiri cidina isma lahayn ciidanka Itoobiya ciidan isur taagi karo ayaa Afrika ay leedahay cidna kuma fikiraynin marka laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baa ka soo saaray muddo bilooyin aan badnayn gudaheed haddaanan loo soo gurmanna dibadda aan looga soo gurmanin oo dawlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbahaystay badan ayaan u soo gurmanna xaaladda intaa waa ka duwanaan lahayd. dagaalkaas waxba yaanan ku dheeraanin hase yeeshee markaan xuso goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd jigjiga oo ciidan xoog leh Itoobiyaanka markaa uu u joogay ciidamadooda taankiga ayaa fadhin jiray sideedana waxay leedahay jigjiga difaac adag oo dabiici ah buuraaley weeye
markii difaacaas la abaabulo la qodo waay la yaqaanaa sahal laguma mari karo isma ayan lahayn Etoobiyaanka karamardha ayay jiiri karaan Soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan isma ayan lahayn dagaalka jigjiga aad buu runtii waa ka qallafsanaa daan xusuustayda dib ugu noqdo 14 casho ayuu nagu qaatay jigjiga inaan ka takhalusno jigjiga waa dhaafnay waa la ogyahay harar markaan marayno ayaa ay noqotay ka soo oo ciidamo kale iyo awood laga badan ay soo gashay meesha lagama maarmaan ay noqotay marka inaan ka soo saaro ciidamada nabad dagaalkaas oo khasaare badan keenay waxaa ku hardamay labadii awoodood ee adduunka ee xilligaa jiray wuxuu ahaa dagaal ballaaran oo khibrada dagaalku ay ku tilmaamaan inuu ahaa dagaalkii saddexaad ee adduunka marka loo eego inta dowladooda si toos ah iyo si dadbanba uga qayb galay dagaalkaas maanta oo la joogo Soomaalida waxaa la gudboon inay dib u dhistaan ciidankoodii si ay marlabaad saaxadda siyaasadeed ee Geeska Afrika ugu soo noqdaan si taas loo helo waxaa lagama maarmaan ah in shacabka iyo dawladduba loo guntado kamari dhalinta dhismaha ciidan haybad leh oo difaac adag u noqda calanka Soomaaliya ciidamada qalabka sida waa kuwii naga soo saaray abaarihii aan soo marnay waa kuwii markii aan baranaynay af Soomaaliga ka qayb qaatay ololaha waa kuwii dalalka dariska intaan u dirno qaarkood soo sugu jiray amniga haddii aadan ku soo korin oo shaki kaaga jira ciddaan ahaan jirnay waxaan ahaan jirnay ciddaas maantay waxaan u baahannahay ciidankeena si baydaheenna dayacan oo kalluunkeena laga guranaayo ha noolaato